markan waxaynu eegaynaa Premier League waxa uu jirsaday 25 sano waa 25 jirsaday 1992 ayaa la aasaasay magacan Premier League loo bixiyay oo loo bilaabay qaabkan cusub hadda loo ciyaaro marka laga tixraaco Premier League ama top flight heerka koowaad ee Ingiriiska waa 25 sano oo toddobaadkan warbaahinta Ingiriiska oo dhan ay xusaysay waxyaabihii ugu muhiimsanaa la ciyaaray ama ba laga xusi karo aynu inagana ku eegi doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan iyadoo kooxda ugu fiicneed aynu fiirin doono laakiin waxa la aasaasay goolkii ugu horeeyay Sheffield United ninkaas ayaa dhaliyay kulankii ugu horeeyay Premier League Man United ayuu ka dhaliyay oo labi hal looga adkaaday Man United oo guuldarada Sheffield United ay ku badisay kulankii ugu horeeyay oo Premier League markii magacan loo bixiyay laakiin isla sanadkaas Man United ay ku guuleysatay horyaalka 1993 ay ahayd Man United waa kooxda ugu guulaha badan 13 oo Premier League ay qaaday 47 kooxood oo ciyaaray Premier League 6 koox kaliya ay ku guuleysteen oo Manchester United kooxda ugu badan ah Chelsea oo kooxda labaad oo 5 jeer qaaday Arsenal 3 jeer Manchester City 2 jeer Leicester iyo Blackburn min hal jeer ay ku guuleysteen Premier League lixdaas koox kaliya ay qaaday 47 kooxood oo ciyaaray farqa weyn Shabalala labadan koox laba Manchester ayaa 15 Premier League ku guuleystay 15 sano taas oo kaliya 60% in ay iyaga ku guuleysteen oo 10 koox kaliya ayaa ka maqan oo kooxaha kale ay ku guuleysteen marka waxay muuqataa in Manchester magaaladaasi ay maamuleysay inta badan Premier League inta la ciyaaray Alex Ferguson waa ninka ugu badan ninkaas sawirka ka muuqda oo 13 jeer uu qaaday ma jiro macallin Ingiriis ah oo Premier League ku guuleystay ninkan waa Scottish oo ninka ugu dhow oo Britain ama Great Britain marka la isku daro UK oo la isku yiraahdo Chelsea iyo Arsenal London ay 8 koob haystaan Tottenham wali wax ma aysan qaadin London 8 Premier League Manchester 15 marka laba koob ayaa maqan Blackburn iyo waxay jiraan Leicester macallin Ingiriis kuma guuleysan shaqo badan oo taal Ingiriis Merseyside gobolkan wali kuma guuleysan Liverpool Everton waxay raadinayaan koobkoodii ugu horeeyay oo Premier League iyagana Chelsea waa kooxda hal xiliyaareed guulaha ugu badan gaartay xiliyaareedkii dhamaaday 30 kulan ay badisay oo iyadana record kale oo Premier League 25 sano la soo dhaafay Liverpool nasiib xumo ay haysata dhinaca taageerayaasha Premier League waa horyaalka ugu badan aad loo soo bixiyay garoomada xiliyaareedkii dhamaaday marka la fiiriyo waxa soo xaadiray horyaalka Premier League 16,822 isku celcelis ana kulan markii la isku celiyo Bundesliga kaliya ayaa ka badnaa oo 41,000 garoonka soo galeen marka la isku celiyo Bundesliga dabcan Jarmalka taqaana taageerayaasha aad garoonka Bundesliga meesha lagu qadeeyaabo 41,512 qof marka la sameeyo average oo xiliyaareedkii dhamaaday Premier League waa horyaalka ugu lacagaha ugu badan lagu bixiyay Alan Shearer waa ninka ugu sareeya 260 gool ayuu ku dhaliyay كوبي طبعا هاتريجو دالي بريمير ليغا وانا كوجو بدن أو سيدو كله رجورة داليا رجورنا خسارية أو رجورين كوجو بدن وخساري كوي طبعا كتر اللي رجورنا ودالي أنا عايشين والله أذو تداري كوي طبعا ده عبر لبسي سنة قبتين وأنا كده لو بقول لهم نقول إن جارو كوبي طبعا هاتريجو لما جرتو بوبي زمارة وبفهمي مارتينيز ولا بدل النكري لا بدل رجورة كداليا ميدك بدح أي كتورين حياة عجيب كا فيسكي بدن قاتين بريمير ليغا زمارة ولي ولا بدي سلوك أسكو متسيد سنتي كسر لكن بفهمي وامدك وستهام أنت إدرس بريمير ليغ هل حليارات لو بكشته ولا كل حيتون مركز لا يرهب أنت كله وحيكون مثلا نيجاتيف جول ديفرنس وحلي أيضا جول له ريال كده جيمس ميلنا وانك كليا أفرتني تدبق جول وكذا بريمير ليغ كلنا وكوحش جول اللي لقمه بدين أما بريجو أما أي بدنيسي أفرني لبعتر رجورة وتوري كوبي لا تكمل ليفربول وأركي رجورين كي كفاش هذا وابو جود بايام ليفربول أستون فيلا نيوكاسل تيجي جولان كوحدي جول ودليا لقما بديو هريال كان وحكدا انفيسيبل سو حل هذا أرسن فينكر oo ku guuleystay horyaalka inuu marnaa laga badin 2003 sidoo kale ambitka ugu dheer ay sameeyeen 2003 ilaa 2004 47 isku xigto liigan laga badin oo record aan wali la gaari karin Arsenal Chelsea waa kooxda ugu badan oo garoonkeeda guul darlaan ku haatay waqti ugu badan 4 sano 86 kulan laga badin Stamford Bridge oo Premier League oo 4 sano laga bilaabo 2004 ilaa 2008 waqtigii Mourinho oo dhan iyo iyadoo la sii dhaafay intaba Azpilicueta iyo John Terry oo Chelsea ka tirsan waa labada nin ku dhameystay hal daqiiqana ka maqnaan hal xiliyaareed 2016 xiliyaareedkii dhamaado Azpilicueta sidaas uu sameeyay saddex nin meeshan waxay sameeyeen waxa la yiraahdo perfect game ciyaar dhameystiran gool ay dhaliyeen goolna ay baaseen oo Treton iska dhaliyeen waa Rooney Davis Kevin Davis nin raado Davis ka saaqan dagaalyahan weyn waa Bale wali waxa uu sii dheeraa kulankaasi in uu calaamad jaalla uu qaatay waa ninka ugu perfect complete sameeyay waa ninka ugu perfectsan marka Premier League waxa badan ay laga xasuustaa oo cajiib ah dhinaca sidoo kale
golalinta shalay tagsilan soo dhaafay codeyn ay qaaday BBC-da ayaa lagu doortay Dennis Bergkamp inuu yahay ninka goolka ugu qurxan ka dhaliyay goolkaasi waanu daawo doonaa laakiin waxaanu ku hormarinaynaa waxaa la sameeyay falanqeeyaasha oo dhan ay sameeyeen hadba kooxda ugu fiicnaa 12 kan ugu fiicnaa waxa loo yaqaano Fast 11 oo 5 sano la soo dhaafay inta daawanaysa marka Shabalala ayaa isagana eegi doona 12 sano ugu fiicnaa Premier League inkastoo 25 sano aan daawanin aniga halkeedaan daawanay laakiin waxa waa daawanaysa choice-kayga ka hadla mugtay maxal laha maybe Jacket you disagree with me macnaha oo ya Premier League garoon biladana daawad Premier League 2002 meelaas دوري تومسون وقت هذا شيء تومسون طبعا 10 سنه wax badan waa ka faansanay wixii kale ku saagana dabcan waxaysa marka hadii aanu bilawno runtii markaan bilaabo Borteri choice Borteri aan ka bilaabaya marka maxaa la yiraahdaa Borteriyaasha choice-kayga markaan hadda meeshan Borteriyaasha ka baxsado waxa meeshan ku jiro Jack Kotowa meeshan lama kala liito Ibrahim laakiin choice ka baxsan waay marka choice ka baxsanayso way adag tahay nin la tuuro ma la meeshan waxa la bita Shoemaker aan u jeedaa David De Gea labadan bari banoon xataa wajiga waa u dhiganaa laakiin aniga waxaan qaatay Shoemaker Shoemaker Borteri aan bita Shoemaker aan qaatay هي دفاعية أفر دفاع كحكته سنتر هافكا عن قاضنا أوكي دفاعية سنتر هافكا وجد ماشي عند الله تورمالة تومن أديسونز معلم واي مسك حديثة باسكا ستيف روس ما بكوسو جارين صوت كامبيل لفت يسيوها محامش عن قاضنا يرتوي مركان فيريو دان waxaan qaatay Rio Ferdinand yes Manchester United player ani ahaan waay taageerasho way isu soo Ferdinand 2002 United ku soo biiray 2013 ku ciyaaray صح center half kala qaadanaya oo u baahanahay isla ragii ku soo laabtay Tony Adams Lee Dixon Patrick Evra Ferdinand in list aan rabaa ninka Vicente Company ragaan ma jeclaan maxaa waa John Terry my favorite player akhrinta kubadda uu aadayo zaid aan jeclaa John Terry haye waa John Terry iyo Ferdinand ay waa Trega number 2 markaan qaato inkastoo Manchester aan taageeri jiray dadka la yaabin maxaa la yiraahdaa number 2 yaashi meeshii lagu jiraa kor marka uu qaaday Lee Dixon waa u jeedaa kubaddiisa zaid uma jeclaan jirin waxa ku soo haray Dennis Irwin Trey waaye Ivanovic ma jeclaanin Gernevel maxaa yeelay markaas ma fiirinayo Gernevel waxaan fiirinayaa duwii ugu fiicnaa waqtigaas Trey aan dooranaya number 3 isla meeshii aan ku soo laabtay Ashley Cole roo cabirtay Ashley Cole Chelsea way badan ay u qaatay dabcan ninkaas meeshaan rag oo waxaan soo saftay kulay Ingiriis waayo kulligood laakiin Ingiriis ahaan kuma qaadan farsamada ku qaatay iyo neefta iyo long time daylista inta badan in lafta isii lagu dhaho ragana ugu fiicnaa أنا هان مركز هذا محكوس عاري أفرت دحى سنترال قادنا عيرتوي أنا كدم بيجرو ماشان والوالين شافي ألونسو واللي وجرد بيل جون فينيس ديفيد بيكهام إيريك كانتونا ستيفن جيرارد كورمري ستيفن جيرارد كورمري بحياة لدي بنوني جيسا عبر كباسك إبراهيم awareness كسبيز ماشي جوجان aggressive football كبنوني وين كأه situation كجيم كأول حبت كلا صارتو أنا أقول كيناي ستيفن جيرارد كارك waxaan ku darsanayaa markaa Steve Gerrard oo meeshaas oo kale number 8 ka kale waxaan ku darsanayaa nin la yiraahdo Roy Keane inkastoo Lampard ay ka tagaayo oo very macallin ahaa Paul Scholes I'm sorry laakiin Roy Keane waxay iska mantalaan ninkan dhulkan uu aadi jiraa soo seeya boxigu ka qayb gala gool marka u baahan tahay awareness ka game-ka dagaalanka wax dhan waa ka hayay kabtanimada leaderka laba kabtan aad doortay way adagta xaaladda kee loo dhiibi doonaa Terry kabtan kala waaye meeshaan kabtanna isku keenay hay boskana dooranaya left winger Undisha number 11 Cantona dadkan David Beckham qof la tuuro male laakiin kor inaan u socdo waaye hoos ragaan ku tabaya absolutely ba choice malihi hal nin aan u socdaa inuu ku jiro picture kama aqaan Cristiano Ronaldo because maxaa yeelay laftiya laga dheelaya waa la imaanaya cross waa keeni kara darbadii 1-1ka uu ka saaya oo maxaa la yiraahdaa kubadii inuu xidiga doona gooshu dhaliya hada wiiga maxaa soo wareegtay 3 bari 4 bari waa aragtay gooshu ugu fiicnaa absolutely waa gola Premier League markuu ka dheelay absolutely buu ka sii daraa because hada assistigiisa ma badna Real Madrid laakiin Premier League waxa ku arkaa wuxuu la shaqeyn jiray ragiisa number 7 rag badan meesha ay saysto David Beckham farsamadiisa waa jecelahay
laakiin wax yar waxaan ku liidayaa 1-1 banoonigiisa ma fiicneen uu farsamo badan yahay maadaama Steven Gerrard iyo Roy Keane aan wato Steven Gerrard aragtidiis fiican tahay David Beckham waa ka boodayaa waxaan meeshaan tagayaa nin la yiraahdo Gareth Bale aan tagay Gareth Bale oo waqtigiisa uu yar yahay laakiin waxaan fiirinayaa dhaqaaqa on time-ka uu tagaayo maxaa la yiraahdaa sidoo hore uu tagaayo awareness-kiisa Cristiano Ronaldo hadda ciyaartan information ka dama macallin ka tahay Cristiano Ronaldo waxa isku bedeli kartaa Bale markana xagga tagaa mana waa lagu wareerinaa kulli strikerada ay soo haray inkastoo ay adag tahay rag wala meeshaan isku ma Sergio Aguero oo u jeeda Eric Cantona Dennis Bergkamp macallin weyn oo ka tagi kara ma aha laakiin raga meeshaan lafooda ku soo qooray kor u soco waxaan qaatay Thierry Henry waxaan ku qaatay farsamada dhaqaaqa maxaa la yiraahdaa 1-1 kama baqo wuxuu yaqaanaa maxaa la yiraahdaa inuu nin istaaga ka rido alaabtii Messi oo kale waa ka suurta gashaa waxa ka suurta gal 4 nin intuu la soo dhex aado inuu ka dhex baxo waa loo baahan yahay support la'aan 4 sano koobaha daabka guuleystay 4 sano kabada daabka absolutely ba kaas waa doortay yaa kula maalinaysa waxaan kula maalinayaa meeshaan choice malihi nin Premier League maxaa la lahaa farsamo badan ku leh oo magac badan ku leh oo goolintiisa ay fiican tahay Alan Shearer Rooney dad badan ku jira Alan Shearer Alan Shearer 260 gool hadii Alan Shearer Thierry Henry salaan Steven Gerrard ku badan Henry Alan Shearer waxa daaya kiino dhulku waardiyeysanaay Bale soo jabsanaay Cristiano Ronaldo jacket team limo saaxib meeshaan iskama ka celin kartid ani ahaan jacketna barnaamijka Monday Football iyo kooxdiisa dabcan isagana waa halkan ayaan ka tagi doonaa shabaab ma santahay waa sidoo doortay u jeedaan Schmeichel oo golhaya Neville Thierry Ferdinand Cole Bale Keane Gerrard Ronaldo Shabalala waxa jira waxyaabo badan iska mid noqon doona laakiin waa soo adkeena ma ku kala soo xiro kuwa ana qaat mushaarkooda xataa raashu way kuwan oo kale way keensanay insha Allah waxa sameysay kooxdaasi qaab xulashadaasi inta badoodaasi waxa furtay BBC da qaybta sportiga oo dabcan falanqayaasha kubadda cagta oo dhan ay ka dooranayeen ninba kooxdu arkashada dadka soo dhaafay toddobaadkan aad bay warbaahinta Ingiriiska u falanqeynaysay